Asalaamu calaykum mudanayaal iyo murwooyin soo dhowaada dhammaantiin meel walba oo aad daafaha dunida ka joogtaan oo ku soo dhowaada machadka Darwiish Academy. Waxaan ku jirnaa guntii iyo gabagabadii qaab dabiiciga calaamadaha uu suuqu sameeyo ee loo yaqaano patterniska. Waxaan u kala qaybinay labo. Waxaan u kala qaybinay continuation patterns iyo reversal patterns. Kuwa suuqa kala wareejiya, kuwa suuqa dhaqaajiya. Kuwa suuqii bay kala wareejiyaan oo markuu suuqii buy ku socday sell u wareejiyaan kadibna waxaa dhaqaajiya wax la dhaho continuation patterns. Labadana waa ka soo hadalnay ugu muhiimsan oo dubdhexaadka u ah oo la dhaho bearish flag iyo bullish flag. Bearish flag waa markuu suuq continuationka hoos u sameynayo iyo bullish flaguna marka uu suuqu kor u sameynayo. Labadaas way waxa arkaysaan waxa kale aad indhihiin uma qabanaya balse kuwa aad indhihiin u qabanaya waa kuwaas oo meel walba time frame kasta aad ku arkaysaan. Waxaa jira marka reversal patternska kuwa badan oo dadku iskaga dhex yaacsan yihiin. Dad suuqa kan muddo ku jiray bay aad suuqan patternska ugu dawaqsan marka laga hadlayo reversal patternska. Kuwa ku jira ba waxay ku tiriyaan dadka qaar qaybta waxay ku tiriyaan continuationka. Taasna waxay keenaysaa in qofkii uu qaab dhismeedkii suuqa uusan aad dabeecadiisa u baran. Suuqa marka dabeecada waxba iskaa tusaya, humaag ba iskaa tusaya. Suuqan saaniyo adoo aqoontii leh misna humaag iskaa tusaya kadibna shaki baa ku gelaya. Marka suuqa shaki ku gelin oo kaaga baxo waxaan rabaa inaan tusaalayaal cadcad iyo si qurux badan oo faahfaahsan kaaga saaro oo cilmiyeysan oo ku dheehan yahay cilmi iyo sharaxaad hufan aan kaaga dhaadhiciyo ascending channel iyo descending channel waxa ay yihiin iyo sababta ay reversal patternska ugu jiraan ugana noqdeen. Dad baa waxay ku tiriyaan continuation patternska. Waxaan ka hadlaynaa marka waa maxay ascending channel? Ascending channel waa qaab dhismeed iyo calaamad awood xooggan leh suuqana kala wareejisa. Waxa ayna kor iyo hoos soo taabataa saddex mar oo jahwareer ah. Waa marka uu suuqu ku jiro jahwareerka ama corrective ama correction sida u taqaanid ama jahwareer ama inuu suuqi ku jiro. oo maxay soo taabatay halkan 1 way timaaday halkan 1 kadib way laabatay halka u jeedaan 1 kadib halka u jeedaan 2 halka kalena 2 bay soo taabatay halkan 3 bay soo taabatay markii kale saddexaadna way jabsatay sababtoo ah waxay dhameysatay qaabkeedii iyo qaab dhismeedkii. Okay, waxa jira marka saddex mar bay soo taabatay jahwareerkeedoo ah suuqana waxa ay u wareejisaa ama ascending channelku suuqa waxa uu wareejiyaa jihada salb u wareejiyaa. Waana qaabka kan oo suuqu marka hore buy buu ku soo socday ujeedaan buy buu ku socday jahwareer buu kala channelkana sameysmay waanigi ka hadlaynay waa la gabyada istul saaran iyo qaabka uu sameysmaan marna wuxuu u sameysmaa si dhuuban buu u sameysmaa oo saas oo kala ah ascending channelku marba si balse markaad baratid qaabku u sameysmo kadibna reversal buu sameeyaa badanaana wuxuu ka dhacaa meel uu suuqu reversal ka sameynayo ma ha noqoto markuu double top ka sameynayo inuu ascending channel ka horeeyo uu sameysmo qaabka marka waa arki doontaan idinkana waa idin tusi doonaa shaxda suuqa iyo structure-ka. Waxaan tegaynaa marka waxa ku xiga oo la dhaho descending channel waa bilcagsiga descending channel-kuna isaguna wuxuu ka imaanayaa kor oo salbu ku soo socda suuqii wuxuu galay jahwareer oo sidii oo kale uu saddex mar isna soo taabanaya hoos u jeedaan halkan waa ka markii kale oo saddexaadna uu jabsaday duusan dheeraan markuu large noqdaa. Okay, hadda markaad fiirisid marka marna wuu yaraanayaa cabirku ogow taas oo wuxuu noqonayaa inuu short noqdo jahwareerkani kadibna uu dhaqaaqo. Descending channelku waa maxay marka? Descending channelku waxa weeye waa qaab dhismeed suuqa jiheeya ama jihadiisa bedela waxa uuna kor iyo hoos soo taabtaa saddex mar isaga oo ku jira
jahwareer xilligan oo kale marka uu ku jiro jahwareerka weeye isaga oo ku jira jahwareer suuqna waxa uu u wareejiyaa jihada buy okay marka aad isla fahanay ascending channel iyo descending channel qeexidooda isna waxa isla fahmaynaa sidee bay uga samaysmaan xageesa ka dhacaan as descending channel waxa uu suuq sal ku socday buu buy u wareejiyaa kulligoodna ogow waxay ka dhacaan trend line dhexdiis meelo kala duwan waad ku arki kartaa meeshaasna ka dhaco ama double top double button suuqu sameeyo soo kala wareega keenaya waana arkaysaan patterniska kan meeshay ka dhacaan iyo sida u dhacaan iyo waxoo dhan waan idin tusayaa ascending channelka iyo descending channelka halka haddaan imaano aan ku horumarno descending channelka haddaan ku horumarno descending channelku muxuu sameeyaa walaalayaal descending channelku waa kan suuqa kan waxa lagu celcelinaya maxaa idhaahday patternisku waxay ka dhacaan channel dhexdiis meesha tana lagu celcelinaya oo jeedaa sooma kadib maxaa dhacay halkan waxa ka dhacay fiiriya bartatan waxa ka dhacay waxa la dhaho descending channel baa ka dhacay jeedaa suuqii si sagsaga lagu soo celiyay descending channel baa ka dhacay soo dhaqaaqay uu yimaaday jeedaa soo dhaqaaqay kadibna suuqii jabsaday jeedaa halkan jawreer kadibna sidaas uu ku tagay oo suuqii uu ku kala wareejiyay descending channelku badanaana suuqa uu wareejiyaa uu jeedaa suuqii buu kala wareejiyay halkan uu soo taabtay suuqa kan kadibna uu soo kala wareegay ilaa uu ka jabsanay hadaa fiiriso marka cabirka suuqa hadaa soo cabiratid hadaa halka ka soo cabiratid ya hadaa halka ka soo cabiratid si fiican u dhaw hadaa halka ka soo cabiratid oo halka dhigatid meeshu ka jabsado u jeedaa si qurux badan targetka kugu gaaraya suuqa marka aad cabiratid halkan ilaa iyo si qurux badan ama halkan ilaa meesha uu ka soo jabsaday descendingka ilaa halkaas ilaa meesha tan targetkaagi si qurux badan buu kugu hit gareynaya okay cabirkaaga sii wado halkan dhigo oo u jeedaan qaabka loo cabirtaan wali ka hadlaynaa yani halkan kan dhig oo u jeedaan suuqani halkan si qurux badan buu targetkii kugu soo taabtay u jeedaa sooma targetkii si qurux badan buu kugu soo taabtay sababtoo ah waa soo cabirata cabirkaagi kadib suuqi muxuu gaaray kalarka haddaan bedelno strong ka dhigno waxa jeedaan si qurux badan kadib wuu dhaqaaqay suuqii oo meesha uu jabsaday baad dhigatay cabirkaaga halkan ahayd meesha tan ahayd baad dhigatay kadib halka markaa dhigatay waxa u jeedaa si qurux badan inaa u dhigatay kadibna uu suuqii sidan kuu gaaray meesha ta gaaray sababtoo ah xagee cabir ka soo bilowday tanaa dheer waa dheeraysiiyey halkan okay bartan dhigo u jeedaa cabirkii meeshuu kuu gaaray si qurux badan meesha uu kugu gaaray cabirka u jeedaa inta tanaa cabiratay meesha uu suuq kasoo sameeyey descending ilaa halkan cabirkaaga baa dhigatay kadib waa qaaday oo risk entry markaa qaadatay reduce risk entry markaa qaadatay inta kor uga kacdayna waa kan targetkaagi halkaas buu ku noqday targetkaagi labaad marka uu ku noqday targetkaagi halkan buu ku noqday yani suuqana inuu cabir ku socdaan ku tusin kan kalena xagee ku noqday oo jeedaa wax meesha uu ku noqday isaguna inay tahay market structure waxa kani uu yahay qaab suuqa kaliya confirmationka aad heshay ilaa inta uu kula gaaray iyo qaabka uu u dhismay haye si kale aan kuugu dhigo ascending channel kani markaad fiirisid marka waxa la descending channel kani markaad fiirisid suuqa xagee u kala wareejiyaa baan dhahnay ya descending channelku suuqa xagee u kala wareejiyaa markaad fiirisid waa kan descending channelku suuqa waxa uu kala wareejiyaa jihada buy buu kala wareejiyaa fiiri marka suuqa kan xagee buu ku soo socday marka hore halkan uu ku soo socday sooma fiiri meesha ku soo socday kadib xagee suuqa uu kala wareejiyay suuqii dhan uu kala weeciyay oo jihada buy buu u weeciyay jida halkan uu ka samaysmay jida meesha ka samaysmay descending channel inta kaliya oo confirmation ilaa intaas kaliya suuqa kan cabiro marka cabirkiisa cabiro impulsive kan kadibna bartaa dhigo waxaad arkaysaa inay la eg tahay tan dhaqaaqa uu sameeyay waxaana waa qaababka aad ku baran kartid meelo badanna waad ka arkaysaa time frame kala duwan baa ka arkaysaa isagoo oo sameeyay channelkani halka maxaa ka dhacay marka halka waxa ka dhacay wax la dhaho isna
ascending channel. ascending channelku waa bilcagsiga descending channelka. suuqani maxaan idhahnaa ascending channelku see u samaysmaa baan idhahnaa saaxiibayaal. suuqa ascending channelku wuxuu ahaa suuqa wuxuu u kala wareejiyaa baan idhahnay sel buu u kala wareejiyaa. okay, sel buuna suuqa u kala wareejiyaa baan idhahnay markaad fiirisid. okay, suuqani muxuu kusoo socday halaka fiiri ujeedaan bay buu ku socday imise mar buu soo taabtay halakan ujeedaa wuu dhaqaaqay wuu soo taabtay wuu dhaqaaqay soo taabtay wuu dhaqaaqay wuu jabsaday. waa maxay kani waa descending channel ascending channel way kan kala descending channel okay saa ujeedaan marka ascending channel kani markuu samaysmo maxaad cabiranaysaa adigu marka suuqa kan muxuu sameeyey waxa uu sameeyey waxa la dhaho ascending channel buu sameeyey. adi marka cabirkaagii baa ku wada suuqa waxa ku wada cabir baa ku wada ilaan suuqani waxa uu sameeyey waxa weeye waxa la dhaho ascending buu sameeyey channel markaad fiirisid. maxaa cabiranaysaa marka seese u cabiranaysaa waxaan la dhaho ascending channelkaaga. ascending channelkaaga waxa u cabiranaysaa marka aad soo qaadid structurekaaga suuqa aad soo cabiratid. okay, halakan uu suuquni yimaaday maxaa keenay inuu halaka kala wareego cabirkaaga cabiro suuqu kuu soo dhacay halakan ujeedaa suuqa cabirkaagii cabiro waxaa arkaysaa exactly tabti inuu soo dhaqaaqay oo halakan yimaaday tabti inuu halakan oo ahayd targetkaagii uu yimaaday meesha tan targetkaagii koowaad inuu yimaaday sababtoo soo cabiratay ujeedaa. okay, waa maxay waa market structurekii aad soo cabiratay oo waxaagii oo dhan oo ku dhammaystiran ahna qaab dhismeedka suuqa haddaa cabiratid dhammaantiisna waxaad og tahay meesha uu suuqii ku gaarayo iyo sababta ku imaanayo. kadib marka ascending channelka kan ood heshid xogtiisa baa waxay kuu fududeynaysaa in aad suuqii uu kala wareego oo kala weecdo. haddaad marka si toos u aragto waxaad arkaysaa meelaha uu ka samaysmay ascending channelkani inay ahayd halakan qaabku u samaysmana fiiriya saaxiibayaal suuqu si cajiiba buu u samaysmay ascending channelku soo taabtay wuu tegay soo taabtay maxaan saddex mar buu soo taabanaya soo taab saddex marha kor iyo hoos buu soo taabtay 1 2 3 kadibna halakan 1 2 3 gina wuu jabsaday saa ujeedaan oo waa kan ujeedaan kana waxaa la dhahaa ascending channel 1 ujeedaan halakan soo taabtay 1 2 iyo halakan 3 kadibna wuu soo jabsaday halakan 1 2 3 wuu jabsaday. tana waxaa la dhahaa ascending channel iyo qaabka lagu ogaado qaabka cabirkiisa iyo wixiisa dhan aad ku ogaanaysidna waan aragnay oo meelaha uu targetkaagu noqonayo waa qaabkiisi oo dhammaystiran haddaad cabiratid markaad fiirisid qaabkii suuqa oo ku dhammaystiran waana market structure markaad fiirisid qaabkaagii ku dhammaystiran kadib halkaa kasoo gashay exactly cabirkii halkaas ku imaanaya markaad si fiican u cabiratid cabirkaagii oo dhan wuxuu ku imaanayaa isla bartigu ku imaanaya oo ah meesha tan waxaana keenaya waa TP-gaagii meesha targetkaagu kuu noqonayo keliya adoo xogtaas helay sirtaas keliya haddaa baratid fiiri imisaad ka faa'iidi lahayd waxa weeye 200 oo biib ku dhowaad. marka ascending channelku waa saas oo kale saaxiibayaal sida aad ku helaysaana waxa weeye mar walba inaad halakan dhiganaysid oo ujeedaan ascending channelku waa sida kan oo kale weeye haddaan idiin soo jaro oo idiin geeyo kaan samaynay oo kale waxaad arkaysaan inuu yahay isku midkii oo wax ka bedelan uusan jirin markaad fiirisid uu samaysmayo qaabkiisii oo kale u samaysmayo ujeedaan qaabkiisii oo kale inuu u samaysmayo waxaana la dhahaa ascending channel ujeedaan qaabkiisii oo kale inuu samaysmayo ujeedaan 1 2 3 1 2 3 wuu jabsaday waxaa la dhahaa ascending channel waana muhiim
in aad mar walba isha ku haysaan, barataan qaabkiisa iyo wixiisa dhan, isna suuqa jihada u soo celiya wax oo dhan. Descending channel-kina waa isla aragnay, meelo fara badan baa ka arkaysaan, waana reversal-ka patterns-ka sameeya. Haddii aad barataanna sirta suuqan oo dhan baad barateen, waxaana ka gaaraysaan suuqa guul la taaban karo. Haddaan marka jarno tan, iyadana haddaan tan jarno, haddaad fiirisid tan xataa adoonan iyada keliyaba dhexdiisa cabirin, kana cabiran kartaa, intaas cabiri kartaa muujeedaa halkaas, sababtoo ah kan wuxuu la egyahay kan markaad fiirisid, waa kaas targetka ay meesha kuu noqonay mid walba ilaa meesha kale uu ka tegayo. Marka aan jarno qaab dhismeedka ka suuqa, haddii aan jarno qaab dhismeedka kan, wax cajiiba arkaynaa in meesha kasoo baxayaan. Halkaa dhig, waxaad arkaysaa sida cajiibka ah uu suuqa kani u sameynaya tan. Okay, aan soo jarno iyadoo dhan dhammaystiran, aan soo jarno saaxiib, iyadoo dhan oo dhammaystiran aan soo jarno. qaab cajiib ah buu u sameynayaa suuqu, tan qaab cajiib ah buu u sameynayaa market structure, waa cajiib muujeedaa, qaab cajiib ah buu u sameynayaa. qaab cajiib ah buu u sameynayaa market structure-kaas. Haddaad fiirisid tan, haddaan jarno qaab cajiib ah rabnaa in isku idiin tuso sida uu u sameynayo descending channel-ka. Kan haddaan inoo soo jaro jeexiisa, descending channel-ka intaan cabirno, muhiimadda inaad fahantaan weeye. Arkaysaan inta mar uu noo soo taabanaya, arkaysaan ku beego inta mar uu soo taabanaya, yacni waxaad arkaysaan inta mar oo si faseex oo noogu soo taabanaya. 1 ujeedaan, halkan 2 ujeedaan, meesha tan soo taabtayana kadibna halkan saa u soconayo. Waa maxay? Markaasaa u fiirisid waad arkin inuu yahay suuqani exactly nuxurkii kale, exactly maaha sawirkan kale, waa sawir aanu gacanta ku sawiray, exactly inuu yahay descending channel baad arkaysaa. Meelo badan oo kala duwanna waad ka helaysaa oo ah qaabka uu suuqu u sameynayo waxa la dhaho descending channel-ka, suuqu soo socday sel iyo qaabku u sameynayo. Waa qaab cajiib ah oo mar walba aad arkaysid sida uu u sameynayo iyo siyaabaha uu sameynayo. Kadibna suuqa wuxuu u kala weeciyaa descending channel-ku, waxa uu weeciyaa jihada buy buu u weeciyaa, si wuxuuna kusoo socday jihada sel buu kusoo socday. Waana qaab cajiib ah oo markaad aragtid oo baratid aad la yaabisid qaababka uu suuqa u kala weecinayo una leexinayo. Marka waxaan idiin rajaynayaa guul iyo farxadda noocyadeeda kala duwan, iyo inaad sirtan suuqa fahanteen insha Allah. Darwish Academy-na waxay idiin haysaa sirtii suuqa oo dhammaystiran. Marka waxaan ka hadlaynaa caawa ascending channel iyo descending channel. Okay, ascending channel-ka suuqa wuxuu kala weeciyaa jihada sell, descending channel-kuna suuqa wuxuu kala weeciyaa jihada buy. Midna wuxuu ka dhacaa hoos, midna buy wuxuu ka dhacaa kor. Waad mahadsantihiin saaxiibayaal, khayr baan idiin rajaynayaa. Thank you.